السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياشا كحران channelkayga doorashajiya waa salaamo walaalahey qaaliga meel walba aad joogtaan. Walaalahey qaaliyahow waxaa idin rajeynayaa caafimaad qab bashbash iyo barwaaqo inta xanuunsan Ilaahay caafiyo. Maanta waxaan gudagalaynaa qaybteena labaad ee otis media ama dhagax xanuunka. Dhagax xanuun gudeedka waa xanuun ku soo bood ah wuxuuna ku dhacaa dhegta gudaheeda waxaana ku soo hoos gambada cudurrada ay ka mid yihiin kuman xanuunka iyo hargabka. Dhagax xanuun gudeedka waxaa sababa bakteeriya loo yaqaano pneumococci. Calaamadaha lagu garto haddii uu jiro xanuun dhegta gudaheeda ah waxaa ka mid ah qandho heer sare ah, miitiska oo gaduuta, xanuun iyo malax ka timaada dhegta gudaheeda. Haddaba haddii aad isku aragto astaamaha aan soo xusnay ama isticmaal daawooyinkan soo socda. Aspirin tab 300 mg ayaa siinaysa furbeyn ku nadiifi dhegta normal saline labada waqti. Penicillin V tab 1x2 ama labada waqti isbuuc ayaa siinaysa. NB haddii bukaha uu qabo allergy ama uu ka qaado penicillin V-ga xasaasiyo waxaad ugu bedeli kartaa erythromycin. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkayga doorashajiya ku soo dhawow, subscribe saar, like saar, wixii macluumaad ahna comment-ga inoogu reeb kambalelkana furo si aad ula socoto macluumaadka caafimaad ee soo gelino. Waad ku mahadsantahay sida wacan aad inagula socoto.